بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كيني SMCC oo mar waliba ka hadla arrimaha caafimaadka. Maanta waxaan ka hadlaynaa waa maxay cagaariyaha lagu arko dhallaanka marka uu dhasho kadib. Cagaariyuhu waxa uu ka mid yahay xaaladaha caafimaad darro ee ugu caansan oo lagu arko dhallaanka marka uu dhasho kadib. Waana xaalad u baahan daryeel caafimaad. Cagaariyaha waxa aan dhihi karnaa marka aan ku aragno kalar jaallo ah maqaarka iyo indhaha canuga. Waxa uu na dhacaa marka ay sarakac ku imaado bilirubinta ku jirto dhiigga. Bilirubintana waa maado haddii jirka ay ku badato lagu arko jirka inay midabkiisa uu noqonayo midab jaallo ah. Qiyaas ahaan 80% waxaa lagu arkaa cagaariyaha isbuuca ugu horeeya dhallaanka dhashay waqtigiisa ka hor, sida dhallaanka ku dhashay 7 bil. 60%kiina waxaa lagu arkaa cagaariyaha dhallaanka ku dhasha waqtigooda, sida dhallaanka ku dhashay 9 bil. Halka 10% lagu arko ilmaha biladhaafka ku dhashay iyo ilmaha naasnuuga ah. Haddii aad ku aragto canugaada cagaariye iyo calaamado, fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u gee goobaha caafimaadka lagu daryeelo. 1. Naasnuug xumo. 2. Kalarka indhaha iyo maqaarka oo guud ahaan yeesha midab jaallo ah. 3. Cunuga oo ay yaraato dhaqdhaqaaqiisa sida inuu meel iska yaalo oo kale. Maxaa sababo cagaariyaha lagu arko dhalashada canuga kadib? 1. Cagaariyaha sababo caanaha naaska. Waxaa jiro cagaariye sababo caanaha naaska, waxa uuna ku dhacaa dhallaanka qaar toddobaadka labaad ee noloshooda ugu horeyso ama wixii ka dambeeyo. Sababtana ilaa hadda lama garanayo. Waxa ay la xiriiri kartaa walxaha ku jira caanaha naaska, taasoo u sahlayso in xiidmaha dib u soo nuugaan bilirubinta. 2. burburka xad dhaafka ee ku imaado unugyada dhiigga cas waxa ay sababaan in cagaariye lagu arko ilmaha. 3. shaqada beerka cunuga oo hoos u dhac ku imaado sabab la xiriira infection waxa ay ka qayb qaadataa in maqaarka cunuga iyo indhihiisa ay noqdaan midab jaallo ah. Mahadsanidin.